Waxaan ku noolaa xaafad qurux badan. Waxaan lahaa saaxiibo badan. Waana faraxsanaa. Shay kastaba wuxuu dhow yahay inuu isbedelo. Maalin ayaan guriga la joogay waalidkay. Aabbahay waxbuu hagaajinayay. Hooyadayna cuntay karinaysay. Richard waa jaarkayga cusub. Wuxuu soo dayay kasoo horjeedka gurigayga. Wuxuu noogu yimid isaan isku barano. Isagu waa qof hadal badan. Wuxuuna ku jiraa da'da kotomeyada. Wuxuu noo sheegay inuu ka shaqaynayay ganacsiga caymiska. Xaqiiqdii wuxuu ekaa mid wanaagsan. Markii uu naga tagay wuu gacan haadiyay. Uuna i dhoola cadeeyay. Laakiinse waxaan dhiisa ku arkay waxyaab leh. Waxaan ku arkay wadada isagoo taagan marar badan. Wuxuuna ahaa mid isoo fiirinaya. Laakiinse markaas waxaan dareemay inuu taagan yahay meel kastiba. Waxaana dareemay inuu i daba socdo. Isla markii uu arkay waalidkaygana wuu isqariyay. Maalin maalmaha ka mid ah ayuu wuxuu weydiiyay inaan isticmaalo social media. Anna waxaan ku iri maya ma isticmaalo. Dabadeed wuxuu yiri ma ka qaadi karaa sawir. Wuxuu iga qaaday sawir telefonkiisa gacanta. Wallaahi waan wareersanahay. Ma fahmin wuxuu iga doonayo. Wuxuu had iyo jeer soo daba raacay aniga. Galabtii ayaa waxaan isku dayay inaan ka eego teleskoobka aabbahay guriga Richard. Waxaan rabay inaan arko waxa uu ku hayo. Waxaan arkay wax iga nixiyay. Waxa uu daawanayay sawiraanteedii. Waxa uu gidaarka ku dhajistay sawiraan gabdho yar. Ninkaasi ma ahayn nin lala yaabo. Waxa uu ahaa nin waalan. Waxa uu ahaa nin u waalan carruurta yar. Habeenkii xigay ayaa waxaan malqay qaylo. Waa rumaysan waaya waxay arkeen indhahaygu. Waxa uu faqaynayay qashinka. Waxa uu qaatay caagii qashinka. Waxaan go'aansaday in aan u sheego waalidkay. Waxaan isku dayay inaan seexdo. Waxaa kiciyay codka booliska iyo qaylada dadka. Waxaan ku soo orday xaggay waalidkaygu joogeen. Waxaan ka war helay waalidkayga oo la xirayo. Waxaan isku dayay inaan xaggooga u ordo. Laakiinse waxa iga joojiyay ninkii deriska. Wuxuu igu yiri dadkani maaha waalidkaaga dhabta ah. Waxay ku soo xadeen adigoo 3 sano jir ah. Waxaadna maqnayd 14 sano. Ugu dambeyntiina waan ku helay. Tijaabada DNA-ga ayaa wax walba xaqiijisay.